bulshada warta nabadda sidee uga qayb qaadan karaan sugidda amnigooda nabadgelyadooda sharafkooda iyo qadiyadooda meel nabada oo horumarkeedu oo cad yahay baan intaas ku soo hogaaminaynay kuna wadnay idinka garabkii aad siiseen hay'adaha amniga iyo maamulkane bay guulo badan oo la taaban karo oo horumarineed lagu soo gaaray guulo badan oo la taaban karo oo amni lagu soo gaaray abaalmarino badan dad shacaba iyo mas'uuliyiin amni iyo maamulba ku bixina halkan maanta lama dhahayo idinmana dhaheeno warta nabadda shacabkeedu lama shaqeeyaan hay'adaha amniga kamana shaqeeyaan amnigooda ma dhaheeno laakiin waxa aan isugu wacnay waxay tahay maadaama wadanku uu ku jiro xaalad dagaal maadaama qof walba madaxaada meerax ku xiray ay tahay amniga qof walba oo Soomaaliyeed sidoo madaxweynuhu inoo sheegay waa mid amnigi ka shaqeynaya oo qawaarijta ka sifeynaya wadanka iyo kii laga sifeynaya wax u dhaxeeyo oo kala ma jiraan saas daraadeed waxaan rajeynayaa hubaana inay shacabka warta nabadda yihiin kuwii qadiyada madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay go'aankii madaxweynaha uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka ra'iisul wasaaraha dhammaan madaxda qaranka isku duuban ay inoo sheegeen ay labo mid saddexaad ma jirto inaad tahay shabaab la dirir iyo wax allaale wixii amniga ka soo horjeeda inaad la diriraysid iyo inaad tahay kii la diriray wax u dhaxeeyo oo shacaba oo guri la iska jiifanayo iyo meel iska cabaayo iyo television la iska daaranayo iyo meel la iska soo labisanayo iyo fadhi ku dirir ma jirto wadanka xaaladaas hadii uu madaxdeena qaranka ay dhaheen waa ku jirnaa aadna aragteen waxa socdo anaga maxaana looga baahan yahay maadaama aan nahay hooyadii dalka waxa looga baahan yahay hormuudkii degmooyinka hadana inaan noqono gobolada dalka waxa ka socdo waa inay ka socdaan degmada warta nabadda maadaama aysan jirin furin dagaal oo hadda anaga aan galeeno maadaama aysan jirin cadow loo jeedo oo hadda aan soo qabanayno waxay tahay xogta iyo xuuraanka iyo nabadiidka nagu dhaxdhuumaaleysanaya hadii ay jiraan halkooda ina anagana soo farmuuqno sidaas oo kale ina anagana soo farmuuqno kana shaqeeyno dadka qalqalka amniga ka dhaxwado caasimada haday degmada ku nool yihiin oo aan ugala jeedo tuugada iyo warxuma tashiilka waa la soo galaya waa la baaba'aya meel hebel la qarxinaya cirka la maraya inta waaye shacabki waa cabsadeen meel lama fariisan karo waxaas oo dhan waxay qusaysaa waa xaaladaha barbagaanka iyo nabadiidka uu ku shaqeysto sidaas daraadeed guri walba qofka degan ee jooga muwaadin adaa mas'uulka ah dawladuna mas'uuliyadaada guud bay haysaa waxa loo baahan yahay in aan iska kaashano yaa kula soo hoyda caawa aadan garanaynin yaa soo degay guriga dariskaaga oo ijaar u soo degay yaa marti ku ah yaa halkan mobile ku qaadanay yaa gabar ku faraxumeeyay meelaha ma nagu dhex jiraan nin ciyaal suuq ah oo gabdhaheena iyo dadkeena iyo carruurteena dhibaateynaya ma nagu dhex jiraan tuugo ma nagu dhex jiraan warxuma tashiil kale intaba gacan birahaan rabnaa inaan ku wada qabanno oo anagoo iska kaashanayno sidoo kale madaarista masaajida yaa soo galay caawa oo masaajidkaas dheeraad ku ah waxa la arkayaa meelaha qaar xogahana lagu sheegayaa in masaajidka inta la yimaado la dhaho masaafur ah meelaha seexda ma haysti waa ina seexdaa hal iseexi caawa masaajidka aan seexdo kuwaasna waa hubineena inay yihiin dad masaafur ah oo garab inooga baahan iyo dad kale oo cadawga ummadda ku dhaxnoola oo dhuumaaleysanaayo culimadiinka sharafta leh halkan fadhiyo waxaan rabnaa in aad ogaataan goobaha masaajida iyo dhaqan celinta isgaar ahaan goobaha dhaqan celinta ee mas'uuliyintooda hadda maanta ay nala joogaan waxaan rabnaa ayagana qof iidan soo ogeysiinin la idinka soo hubinin la baarin caafimaadkiisa la jeegareenin inuu bulshada badqabkeeda ka shaqeynayo inuu mid shaqo kala wato oo yahay in aadan ku xareenin xaruntaada dhaqan celinta hadii aan ugu imaano dhaqan celin maalin walba 10 20 30 qofood oo dhalinyaro ah ay ku jiraan ama waayeel waxay rabaan ba ha noqdaane ee aanan la soo ogeysiinin tirada saxda ah shakhsiyaadka ku jiro taliska booliska iyo hay'adda nabad sugidda iyo maamulka markaas waaxda ilaanta halkaas joogo dambiila tahay
waxaana kaagala laabaneynaa wax walba oo wada shaqeyn ah ay kula lahayd degmada sidaas daraadeed ha ku xareenin xaruntaada qof aadan soo hubinin dalaaleyda iyo guud ahaan ayagana waxaan rabaa shaqadu waa sideedii sidee hore inoogu socotay oo la sii adkeeyo guri allaala guri qofkii raba inuu kireeyo iyo kan raba inuu kireysto asagaba waa inay imaadaan xarunta degmada goobaha loogu talagalay ee gaarka ah oo laga hubinayo qofkan degaaya degmada iyo sida uu yahay guud ahaanteen oo isku duuban ba amnigan dan iyo inoogu jirtaa qof kaliya maamulka degmada oo maanta tirada yara iyo hay'adaha amniga ka shaqeeya oo la isku geeyo amniga kaligood dan ugu ma jiro meeshii ay wax ka dhacaan waa ama mid adigu saameysa ama mid qoyskaaga saameysa ama mid qof aad taqaanid saameysa Soomaali waa xidid dad isku wada dhow dad walaala dad wada ehela dhammaanteena waxaana looga baahan yahay inaan dareenno mas'uuliyadaas gaarka ahna ee amni inaan isa saarno meel amni jiro oo amaanada iyo amniga aan ka wada shaqeeyno baa horumarkeeni si wanaagsan sida hadda uu yahay kasi laba jibaarkiisa ay ku sii soconaysaa insha Allah sidaas daraadeed anagoo tixgelinayna baahiyaha kala jira anagoo tixgelinayna baaqi madaxdeena qaranka ah waxaan rabnaa in aan isku duubni iyo wada shaqeyn iyo qof walba barbarka uu taagan yahay inuu uga soo baxo ka shaqeynta amniga haweenka sharafta leh ee degmada warta nabadda hal doorkii hooyooyinka caasimadda waxaa rabaa idinkana inaad dhaxda xirataan waan arkaaye waanan idinku hogaaminay waanan idinla garab taaganahay sida furimaha aad garabka u siiseen ee aad biskutka iyo oodkaca iyo rootiga aad u sameynayseen intaba maanta waxaana looga baahan yahay inaan intii kala sameeyno inaan jagbointiyada tagno wiilasheena hubino siday u shaqeynayaan habeenkii roondada gabar kastaahi iyo waxa ay awoodii ka shaqeynteeda askarta inay la daba taagnaato la shaqeysaan haday noqon lahayd inaad kaalmadii raashinkii saboortka ahay furimaha lagu sabood gareenay idinkoo gacanna ku wada gacanna uga shaqeysaan howlgalada lana garab siisaan hooyada ayada wax walba og hooyada ayada laf dhabar ah hooyada ayada wadankan hiigsiga maanta loo raba gaarsiin karta horeyna uga soo shaqeysay sidaas daraadeed hooyooyinka warta nabadda gabdhaha dhalinyarada ah bahweynta guud ahaanteed ee haweenka Soomaaliyeed ee degmada warta nabadda waxaan rabnaa kacdoonka Soomaaliya ka bilowday ee meel walba haweenka aad arkaysaan idinku qayb ay ka tihiin inay xaafad walba uu ka bilowdo waxaan rabaa intaas markii aan ka soo gudbo ina halkan tacsi uga diro qof kasta oo Soomaaliyeed ee wax ku gaareen howlgalada socda oo dalka guud ahaan ka socda intii ku dhimatay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto waa shuhado inta dhaawacana Allah inoo caafiyo dhaawacayna waa inaan ka warqabnaa caasimadda waxa la keenaa qof kasta oo meel wax ku soo gaaraan waa in ayagana aan ka warqabno oo warta nabadda ee hormuud u ahaato waxaan rabaa si gaar ah in ay igula faataxada igula martaan saaxiibkeen walaalkeen muddo 3 sano iyo bilooyin ah inagala shaqeynay degmada warta nabadda walaalkeen taliyihii saldhiga booliska degmada Hodan Xuseen Cadceed Cismaan Shuuriye oo aan leenahay ehelkiisa iyo saaxiibadii iyo bahdii oo ka baxay guud ahaanteeda ciidanka booliska Soomaaliyeed in jannatul firdaws Ilaahay uu ka waraabiyo muddo yarna aan hadii aan faataxada isugu darno qabrigiisa inuu Ilaahay u nuuriyo annagana sharafkii uu ku dhintay ee qadiidiisa ahaa qof walba Soomaaliyeed inuu niyeysto inuu halkaas naftiisa